haddii aad diiqo ku dul socotid waxaad la kulmaysaa ugu yaraan 3 dhibaato mid ka mid ah ama waa ku sifixanaysaa ama waa wasaqoobaysaa ama way kugu dhagaysaa haddii ay kugu dhigto Soomaalidana waxay tiraahdaa maja dhooqa leh habba mid baa la saaraa noloshuna waa sidaas oo kale inta aad nooshahay mar waa sifixanaysaa mar waxa laga yaabaa inay kugu dhigto marna waxa laga yaabaa inay ku wasaqayso markii ay nolosha ku wasaqaynayso waxay macna ka tahay dad aad aamintay soo dhaweysatay asxaab ka dhigatay ama qof wanaagsan ka dhigatay ama familkaaga kamid ah inay ceeb ka diyaariyeen ama ceeb kugu sameeyeen waa wasaqowday marka ka fikirin in ceebtaasi ay culays kula noqoto ee waxaad ka fikirtaa sidaad nadiif uga noqon lahayd haddii maanta ay jiraan fikir meel aad u dhaqaaqdid mar walba waxay niyad gelisaa inaad dul saaran tahay dhiiqo taasoo kula sifixanaysa ha ka fikirin habba meesha aad u sifixanaysid ee waxaad ka fikirtaa sidaad u noqon lahayd horta qof taagan qofku markii uu helo balansigiisa ayuu socon karaa laakiin haddaad marka horeba helin balansiga waxaa noqonaysa habba mid meel u sifixada mar walba waxaa hadaf ka saartaa inaad horta marka hore naftaada la heshid inay taagan tahay kadibna way ku sahlanaanaysaa inaad tartiib uga baxdid noloshaani habba dhinac ku jiidanaysa haddii ay maanta jirto nolol kugu taagan dhankay doonto ha noqoto famil xiriir ama wax un aad markaasi aad isleedahay kama bixi kartid mar walba niyada waxa aad gelisaa inaad labada lugood dhiiqa kula jirtid ha ku fikirin inaad hal mar labadaada lugood ka bixisid ee waxa aad ku fikirtaa habba mar inaad lugta saartid si aad uga dhamaatid meeshaasi badanaa markii arrin ay kugu taagan tahay waxa laga yaabaa inaad cabatid ama daris la noqoto qof cabanaya cabashadu saameyn ayay kugu yeelanaysaa walaacuna waa kugu sii badanaya maskaxdeenu waxay u qaabaysan tahay arrin inay aragto xalkana ay raadiso laakiin xalkii haddaad ku bedeshid cabasho waxaa imaanaysa in qaybtii xalka raadi jirtay shaqadeedu ay gabto aad noqotina qof la nool cabasho kadibna wax walba oo kula soo darso aad ka murugootid cabashadana waxaad uga fogaa kartaa inaad mar walba isku mahad celisid in qofka cabanaya ama qofka aad ka cabanaysidne aad u ogolaanin inay cabtaan ama naftaada u ogolaanin haddii aad mar naftaada u ogolaatid cabashada ama qofka kale ee cabanaya aad istiraadid buuqa yuusa sii badanin haye iska dheh waxaad u furto wado ay mar walbaba mustaqbalka ku sii cabtaan kamana baqayaan waayo waa wadadii baa siisay waxay inay ku dadaalayaan wax walba ay dareemaan wax walba ay ka arkaan inay hore ka cabtaan maanta xaalad walba aad ku sugan tahay haddii aad sibibixanaysid iyo haddii ay wasaq soo gaartay iyo haddii ay jirto xaalad kugu dhegan aad ka dhaqaaqi laadahay mar walba ka fikir sida aad uga bixi lahayd ee ha ka fikirin waxa sababay iyo sida ay ku timid waayo waxaasi waa laga soo gudbay xaalad walba kugu taaganne waxa aad uga gudbi kartaa inaad badisid feejignaantaada mar haddaad feejigan tahay hadalkaad u fiirsanaysaa fikirkaad u fiirsanaysaa socodkaana u fiirsanaysaa waxa aad noqonaysaa qof dheelitiran dheelitirkaasina wuxuu kuu sahlayaa inaysan ku soo wajahin dhibaato haddii xataa ay ku soo wajahdana waxa ay kuu sahlaysaa feejignaantaada inaad xal u heshid qof walba dunidan ku nool diin walba ha haysto dhaqan walba ha haysto dhibaato way la soo daristaa laakiin waxa lagu kala duwan yahay oo lisdheer yahay dhibaatadaasi sida loo xalliyo iyo sida loogu dulqaato iyo sida loogu samro iyo sida loo eego wax walba dhacaya wax weyn ma aha sida aad uga fikirtid iyo sida aad waqtiga u siigsid baa ka dhigaysa wax weyn waxaana haddii muhiim yihiin haddaad waqti badan siisid muhiim bay noqonayaan haddaysan muhiim ahayn haddii aad waqti badan siisin dhibaato ayay kugu noqonaysaa inta aad nooshahay ha ka fikirin in lagu saxo ee waxaad ka fikirtaa inaad wax fahantid fahamku wuxuu kuu sahlayaa mar walbaba inaad ujeedkaaga heshid